Assalaamu calaykum. Bishii July 2017, haweeney lagu magacaabo Jill Ashimbo waxay joogtay gurigeeda waxayna karsanayday casho. Waxaa ku yaraaday hilibkii ay cashada ku karsanayday, waxaana ku soo dhacay in gurigooda uu yaalo firijeer uu ninkeeda u keenay saaxiibkiis. Firijeerka waxay go'aansatay inay hilib ka soo amaahato, dibna ay ugu celido hilibka. Waxay tagtay qaybta hoose ee guriga, sababta uu wuxuu yaallay firijeerka qaybta hoose. Markii ay tagtay qaybta hoose oo isku dayday inay firijeerka furto, waxay aragtay inuu quful yahay firijeerka. Waxay ka furtay firijeerka boolasha ku xiran birta kore ee qufulka isku hayda. Markii ay boolasha ka furtay, waxay aragtay in firijeerka ur yar ay ka soo baxaydo. Kadibna waxay u yeertay ninkeeda markii uu yimid wuxuu furay firijeerkii, wuxuuna arkay inay ku jiraan bac madow. bicihii mid ka mid ah ayuu furay, waxaana uga soo baxay wax lama filaan ah. Wuxuu ku arkay lug bini aadan oo ku jirta. Meeshii waa lagu kala cararay, waxayna la xiriireen booliska markii ay yimideen oo ay baareen, waxay ogaadeen inuu yahay meydka gabar la waayay 4 bilood ka hor oo lagu magacaabo Shannon Graves. Shannon Graves waxay ku dhalatay magaalo yar oo lagu magacaabo Youngstown oo ku taala gobolka Ohio sanadkii 1989. Aabaheed wuxuu ahaa boolis, mana uusan ogeyn inay gabar u dhalatay. Hooyadeed ayuu xiriir la sameeyay, kadibna waa ay kala tageen. Laakiin hooyadeed markii ay kala tageen kadib ayay uuraysatay. Umana aysan sheegin aabaheed inay gabar u dhashay ilaa ay ka gaartay 5 sano. Markii ay gaartay 5 sano, ayay masawirkeeda iyo fariin waxay u dirtay aabaheed, waxayna ku tiri gabadhaas adiga ayaa dhalay. aabaheed xilligaa wuxuu lahaa qoys kale, wuxuu lahaa gabar kale iyo wiil. Markii uu ogaaday inuu gabadhan dhalay, wuxuu isbaray gabadhiisa iyo gabadha iyo wiilka kale oo dhalay. Kadibna waxay u soo wareegtay Shannon guriga aabaheed, waxayna la nooleed aabaheed ilaa ay ka gaartay da'da 20meeyada. Markii ay 20meeyada gaartay kadib, waa ay ka tagtay guriga aabaheed, waxayna u degtay gurigeeda goonida ah ayay degtay. Waxayna ka shaqo bilowday salon ama bukiyeer. Inkastoo ay ka guurtay guriga aabaheed, laakiin mar walba waa ay soo xiriiri jirtay qoyska. Isbuuc walba mar ayay soo booqan jirtay. Sidoo kale marka ay jiraan munaasabadaha sida xafladaha dhalashooyinka mid ka mid ah qoyska ama maalmaha fasaxa, waa ay kala soo qayb geli jirtay munaasabadahaas. 2017 markii la soo gaaray, iyada iyo qoyskeeda waxaa isugu dambeeyay bishii January. Bisha 3aad ee sanadka bisha March waxay ahayd dhalashada walaasheed ka weyn, laakiin ma aysan imaan dhalashada. Waxay is yiraahdeen laga yaabay inay mashquul tahay. Inkastoo aysan caadadeeda ahayn inay munaasabadahaas oo kale ka maqnaato, laakiin waxay is yiraahdeen waa ay mashquushay. Kadib waxaa la gaaray fasaxa Easter-ka, waa waxa iyagu dabaaldegaan. Kadib waxaa la gaaray maalinka aabayaasha adduunka sida iyagu ay u yaqaaniin 15 June, isagana ma aysan imaan. Markii aysan imaan 3 munaasabadood oo isku xiga, aabaheed wuxuu ka cabsaday inay gabadha wax ka qaldan yihiin. Kadibna wuxuu la xiriiray saaxiibkeed oo ay la nooleed oo lagu magacaabo Arturo. Markii uu la xiriiray saaxiibkeed, wuxuu u sheegay inay isku dhaceen kadibna ay kala tageen, gurigana ay isaga tagtay oo ay nin kala raacday, kadibna uu arag. Sidoo kale aabaheed wuxuu isku dayay inuu waco taleefankeeda, laakiin taleefankeeda wuxuu ahaa lama heli karo. Walaalkeed ayaa wuxuu u diray fariin, wuxuu kala hadlay internetka. Fariintan wuxuu ugu diray xagee ka baxday Shannon ayaanta laguma arage. Kadib waxaa loo soo diray fariin yaa tahay adiga. Wuxuu u diray fariin kale waa walaalka. Waxaa loo soo diray fariin malihi walaal. Waxay ogaadeen qoyska in taleefanka aysan haysan Shannon oo qof kale oo isticmaalayo, sababtoo haddii ay tahay Shannon, walaalkeed ma dhahdeen malihi walaal. Muddo kadib 22 June markii ay waayeen, ugu dambeyn waxay la socodsiiyeen booliska in la la'yahay gabadhooda muddo 4 bilooda. Booliska waxay yimideen guriga qoyska, waxayna weydiiyeen markii ugu dambeeyay oo ay gabadha arkeen. Waxay u sheegeen in markii ugu dambeeyay ay ahayd bishii January, waxayna u sheegeen inay la nooleed saaxiibkeed oo lagu magacaabo Arturo Nofoa. Boolisku kadib waxay tageen guriga ay ku wada noolaayeen Shannon iyo Arturo, waxayna wareysteen Arturo. Arturo wuxuu u sheegay in isaga iyo Shannon ay isku dhaceen, kadibna ay tagtay oo ay nin kala raacday meelay aadayna uusan ogeyn, ninka magaciisana ma uusan aqoon. Wuxuu u sheegay sidoo kale in ay lahayd iyo baabuurkeeda ay ka tagtay oo ay ku tiri waa u soo laabanaa muddo kadib, laakiin aysan weli u soo laaban. Booliski waxay ku laabteen qoyskii si ay u ogaadaan ninka kale uu sheegay Arturo qofka uu yahay. Waxay u sheegeen in laga yaabo inuu yahay saaxiibkeed hore. Waxaa jiray nin hore oo saaxiib la ahayd oo lagu magacaabo John waxay saaxiib la ahayd sanadiyadii ugu dambeeyay, laakiin waxaa lagu qabtay John daroogo, kadibna waa la xiray. Intii uu xabsiga ku jiray ayay xiriirka u jartay, waxayna baratay Arturo.
inta markay ogaadeen booliska waxay ku soo laabteen xarunta booliska waxayna baareen qofka uu yahay John. waxay ogaadeen John in dhowr isbuuc ka hor intii aan la weyn Shannon laga soo daayay xabsiga maadaama ay ogaadeen inuu dambiile hore yahay sidoo kalena ay ogaadeen Shannon inay xiriirka u jartay intuu xabsiga ku jiray waxay isiraahdeen laga yaabo inuu isagu dilka geystay masayr dartiis kadibna waxay u yeereen John waxayna ka qaadeen waraysi. John wuxuu sheegay in markii isugu dambeeyay isaga iyo Shannon ay ahayd bishii February markii uu xabsiga ka soo baxay kadib dib dambana uusan u arag. sidoo kale wuxuu sheegay markii uu waayay kadib inuu gurigeeda tagay oo uu muddo indhaha ku hayay laga yaabo inuu arko iyadoo guriga sii galayda ama iyadoo ka soo baxayda laakiin ma uusan arag. arrinkaas cusub ee uu sheegay ee ah inuu dabagal ku hayay maalmihii ugu dambeeyay waxay ku sii kordhiday dambi baarayaasha shakigii ay ka qabeen inuu isagu ka dambeeyay weynteeda laakiin maadaama aysan cadayn ku hayn waa ay iska sii daayeen John waxayna bilaabeen inay dabagal ku sameeyaan oo indhaha ku hayaan waxyaabaha uu samaynayo. sidoo kale mas'uulkeeda ay waxay la wadaageen warbaahinta waxayna ka codsadeen inay wararkeeda baahiyaan in la yahay laga yaabo in qof wax aragtay ama wax og inay booliska la soo xiriirto laakiin waxba kama aysan dheefin booliska la wadaagida warbaahinta oo isbuucyadii xigay oo dhan wax cusub uma aysan soo bixin booliska cid la soo xiriirtayna ma jirin. laakiin bishii July dhamaadkeedii ayay wax walba isbedeleen. 29 July 2017 nin lagu magacaabo Ken Eshenbo ayaa wuxuu la soo xiriiray booliska tuulo yar oo lagu magacaabo Campbell oo 16 kiiloomitir u jirta magaalada Youngstown. wuxuuna u sheegay in furniture yaala gurigooda ay ka heleen meydka qof. kadib booliskii Campbell waxay tageen guriga sidoo kale waxay la xiriireen booliska magaalada Youngstown si ay u soo diraan dambi baarayaashii sababtoo ah xilligaas dhowr gabdhood ayaa waxa lagu waayay magaalada Youngstown. waxay isiraahdeen booliska Campbell laga yaabay gabdhihii lagu waayay Youngstown mid ka mid ah meydkeeda inuu yahay waxaana yimid goobta dambi baarayaal ka socda Youngstown. kadib waxay tageen guriga reer Eshenbo waxay tageen qaybta hoose waxay ugu tageen furniture-kii ay qoysku meydka ka heleen. wuxuu ahaa furniture kuwa dhulka yaala ah. furniture-ka ay fureen furniture-ka waxaa ku jiray baca madow bacaha qashinka kadib waa ay soo saareen. sidoo kale waxaa ku jira garaafo weyn ama sakeel isagana waa ay soo saareen isagana waa ay fureen bicihiina waa ay fureen. bacaha waxay ka heleen meydka qof la jarjaray oo barafoobay waxay ka heleen xubno kala duwan oo ka mid ah jirkii qofka. garaafaha weynna waxay ka heleen xubnaha qaybo ka mid ah iyo madaxa qaybta kore. dambi baarayaasha ka yimid Youngstown mid ka mid ah ayaa wuxuu ku arkay mid ka mid ah lugihii meydka tattoo ku sawiran ama shaabad ku sawiran kadibna wuxuu baaray masawiro uu hore u haystay oo ay lahayd Shannon oo qoyska uu ka soo qaatay wuxuuna ka fiiriyay inay tattoo lugta ku leedahay in kale. masawiradii wuxuu ka dhax arkay inay lugta shaabad ku lahayd kadibna wuxuu isbarbar dhigay labada shaabadood waxayna noqdeen isku mid. sidaasna waxay ku ogaadeen inuu meydku yahay meydkii Shannon laakiin si ay u sii hubiyaan waxay ka qaadeen farihii markii ay baareenna waxaa u soo baxay inay yihiin farihii Shannon. ugu dambeynna si rasmi ah waxay ku ogaadeen in meydka ay ka heleen furniture-ka ee la jarjaray uu yahay meydka Shannon Graves. waxay la xiriireen qoyskeeda waxay la socodsiiyeen inay meydkeeda heleen. intaa kadib waxay soo wadeen labadii qofood ee guriga deganaa Ken iyo haweeneyda oo lagu magacaabo Jill Eshenbo waxayna keeneen magaalada Youngstown waxayna u wareysteen hal. Jill Eshenbo waxay u sheegtay in iyadoo cunto karsanayda uu hilibka ku yaraaday sidaa darteed waxay go'aansatay in furniture-ka ninkeeda uu saaxiibkiis u keenay ay hilibka amaahato dibna ay ugu celiday hilibka mar kale. waxay tagtay kadib qaybta hoose ee guriga sababtoo ah furniture-ka wuxuu yaalay qaybta hoose. waxay aragtay inuu furniture-ka qufula yahay laakiin waxay ka furtay boolasha ku dhagan birta qufulka isku hayda birta kor uga dhagan kadibna waxay u yeertay ninkeeda ayaa furay furniture-ka wuxuuna ku arkay bacamad madow inay ku jiraan. bicihii mid ka mid ah ayuu furay waxayna ku arkeen lug bini aadan kadibna waxay la xiriireen booliska. sidoo kale Ken ay wareysteen isagana wuxuu u sheegay in furniture-ka uu keenay nin ay saaxiib ahaayeen oo uu ku sheegay inuu yahay fanaan degan magaalada Youngstown oo lagu magacaabo Anthony Gonzalez ama wuxuu caan ku yahay ayuu yiri Tony G. laakiin booliska ma aysan aqoon wax fanaana oo la yiraahdo Tony G ama Anthony Gonzalez oo degan magaalada Youngstown. wuxuu tusay Facebook page uu leeyahay ninka uu sheegayo ee Tony G. markii ay arkeen
waa ay aqoonsadeen. Wuxuu ahaa Shannon Graves saaxiibkeed Arturo Novoa. Tony China ma ahayn, Anthony Gravesna ma uusan ahayn. Labada magacba waxay ahaayeen been abuur. Ken wuxuu u sheegay sidoo kale in firinjeerka markii uu keenay uu ku yiri waxa iga go'an korontada, waxa iga halaysan korontada guriga ee firinjeerka ii hay, korontadana iigu xariiri, waxa iigu jira hilib inuu iga halaabo ma rabo. Firinjeerkan wuxuu yaalay gurigooda ka hor intii aysan xaaskiisa furin hal isbuuc. Intaas markii ogaadeen booliska waxay soo goosteen fasax inay baaraan guriga Arturo. Waxay tageen guriga ay deganaayeen isaga iyo Shannon. Guriga markii ay tageen waxay ku arkeen waxyaabo la yaab leh. Marka koowaad waxay ku arkeen midi weyn oo ku taagan albaabka. Sidoo kale waxay ka heleen dhowr dhibcood oo dhiiga oo ku yaala darbiga. Waxay kaloo ka heleen rasiid uu ku kireystay guri kale. Waxay tageen guriga kale uu kireystay, isagana waxay ku sameeyeen baaritaan. Guriga waxaa ku wada noolaa isaga iyo haweeney lagu magacaabo Katarina Layton. Guriga markii ay tageen waxay ku arkeen sagxadda guriga inay ku yaaleen xariiqyo u eg inay ka dhasheen wax lagu jiido oo kale, wax culus oo lagu jiiday. Guriga ayay gudaha u sii galeen waxayna ku sameeyeen baaritaan. Waxay ka heleen warqadda tilmaanta sida loo isticmaalo firinjeerka, warqadda la socota firinjeerka ay ku qoran tahay sida loo isticmaalo, iyo waxay ka heleen salad ka mid ah saladaha firinjeerka. Waxay ka heleen sidoo kale rasiidkii lagu soo gaday firinjeerka, waxaana ku qoraa magaca Katarina Layton. Sidoo kale wuxuu u sheegay Ken ninkii ay gurigiisa ka soo heleen firinjeerka in markii Anthony ama Arturo uu u keenayay firinjeerka inay la socoto haweeney saaxiib la ah oo lagu magacaabo Katarina. Kadib booliska waxay soo xireen Katarina iyo Arturo, labadoodana waxay ka qaadeen waraysi. Labadooduna waa ay inkireen inay dileen Shannon ama inay ka dambeeyeen dilka Shannon. Let me ask you something. Forget all this. Did you kill her? Hell no. Were you there when she was killed? No. Katarina iyadu waxay ahayd saaxiibtiis ka hor intii ay isbaran Shannon. Waxay isbarteen Arturo iyo Shannon. Markii la waayay Shannonna dib ay isugu soo laabteen waana ay isla deganaayeen Arturo iyo Katarina. Labadooda markii la xiray kadib dambi baarayaashu waxay isku dayeen inay cadeymo dheeri helaan ka hor intii aysan maxkamadda geyn. Dhowr maalin kadib waxaa dib mar kale ula soo xiriiray booliska John, ninkii saaxiibkeed hore ahaa. Wuxuuna u sheegay in uu ogaaday in Arturo alaab ay leedahay Shannon bishii March uu ku gubay guriga inay saaxiib yihiin oo lagu magacaabo Stephen. Booliska waxay tageen kadib guriga Stephen. Guriga markii ay tageen waxay weydiiyeen inuu alaab Arturo gurigiisa ku gubay. Wuxuu tusay meeshii uu ku gubay alaabta Arturo. Waxay baareen wixii ka haray wixii la gubay, waxayna ka dhaxeleen jijin uu ku qoran yahay magaca Shannon. Kadib waxay soo wadeen Stephen, waxay keeneen xarunta booliska, isagana waxay ka qaadeen waraysi. Wuxuu u sheegay Stephen in bishii March gurigiisa ay ku qabsadeen xaflad yar habeenada ka mid ah isaga iyo saaxiibadiis. Dadka yimidna waxaa ka mid ahaa Arturo oo saaxiibkiis ahaa. Wuxuu yiri markii cabaar socotay xafladda waxaan arkay Arturo oo alaab ku gubaya meel dhinaca. Waanu imid waxaan ku yiri alaabtan maxay tahay gubaydo. Wuxuu ku yiri waxa iska leh Shannon, waa isku dhacnay kadib way tagtay nin kale raacday, alaabtaana iyada ayaa ka tagtay, sidaa darteed ayaan alaabta u gubayaa. Sidoo kale wuxuu sheegay Stephen booliska in isaga kaliya uusan ahayn oo habeenkaas uu la socday nin kale oo alaabta la gubay oo saaxiibkiisa oo lagu magacaabo Andrew Herman. Waxay baareen booliska qofka uu yahay Andrew. Waxay galeen Facebookiisa. Facebooka waxay ku arkeen haweeney uu soo dhigay oo lagu magacaabo Jamie. Haweeneydaas ay la xiriireen waxay weydiiyeen inay kiiska wax ka og tahay in kale. Waxay u sheegtay in Andrew uu u sheegay in Katarina iyo Arturo ay dileen Shannon, isagana uu kala qayb qaatay meydka sida ay u qari lahaayeen oo ay meydka u jarjari lahaayeen. Intaa markay ogaadeen Stephen waa iska fasaxeen, waxayna soo qabteen Andrew Herman. Isagana waa ay wareysteen. Isaga markii hore waa uu inkiray inuu wax ka og yahay, laakiin markii ay tuseen cadeymihii ay hayeen oo ay ku yiraahdeen waa ognahay waxa sameeyay, wuxuu u sheegay in maalin maalmaha ka mid ah uu soo wacay Arturo uuna ku yiri ii imaw waxa iigu timaada guriga Katarina. Markii aan tagay waxay u tuseen meydka Shannon. Madaxa ayaana waxa kaga yaalay dhaawac ka soo gaaray buris madaxa looga dhuftay. Waxaana buriska ku dhuftay ayuu yiri Katarina oo waxay u geeriyootay dhaawacii madaxa ka soo gaaray iyadoo ku jirta musqusha guriga iyada iyo Arturo ay deganaayeen ayna madaxa buris kaga dhufatay. Kadib waxay ku yiraahdeen nagu caawi inaan meydka qarino. Kadib wuxuu yiri meydka waa jarjarnay, aniga iyo Arturo ayaa jarjarnay, waxaana ku shubna fuusto. Sababta ay u jarjareen waxay ahayd waxay soo iibsatay Katarina aashito, waxay islahayd aashitada ku shub oo meydka isaga dhanba baabi'i. Laakiin wuxuu yiri markii aashitada aan ku shubnay aashitada way shaqay weyday, waxay ahayd aashito aan saafi ahayn
aashitadii markay shaqay weyday waxay soo iibiday Katarina Fringier xubnihii ay jarjareen ee meydka waxay ku shubeen baco waxayna ku dhex rideen Fringierka waxayna dhigeen guriga Arturo wuxuu yaalay guriga Arturo laakiin bishii July markii ogaaday Arturo inay boolisku baaritaan ku hayaan oo uu isiri laga yaabay inay gurigaaga imaadaan oo ay baaraan ayuu Fringierka guriga ka soo saaray wuxuuna geeyay guriga saaxiibkiis wuxuu geeyay tuulo kale oo lagu magacaabo Campbell xarxariiqyadii ku yaala sagxadda guriga Arturana waxay ka dhasheen markii uu guriga ka soo saaray Fringierka ayuu ku jiiday sagxadda sababta Fringierka waa uu cuslaa oo waxa ku jiray meyd gurigaas ayuuna dhigay ilaa ugu dambeyntii qoyska ay ogaadeen in waxa ku jira uu yahay meyd oo sidaas lagu soo qabtay intaa kadib waxaa la soo taagay maxkamad saddexdoodaba Arturo iyo Katarina iyagu marnaba ma aysan qiran inay dileen waxaana lagu kala xukumay 48 sano ilaa xabsi daa'in waxaa lagu xukumay Arturo Katarinana waxaa lagu xukumay 18 sano oo xabsiya Andrew Herman maadaama uu ka qayb qaatay meydka jarjaridiisa iyo isku dayga inay cadaymihii qariyaan isaga waxaa lagu xukumay 12 sano oo xabsiya qisadeeni maanta intaas ku eg tahay tan kulati dambe waxaan idinkaga tegayaa amaana Allah